gabadhan waxay gurigeeda imanaysaa iyadoo daalan isla markiiba indhaha qac waxay ku siinaysaa ninkeedii oo gabadh kale la jiifa ciil dartii inta isqabqaban kari weydo ilaa waxay samaysan garamaysa uu ka xoog weyn yahay ayay banaanka iskaga baxaysaa intay banaanka iskaga soo baxdaabay iskaga oohin dhamaysanaysa oohintu ka daadanaysaa alla marka aad nin aad jeceshahay isaga daraadii ay sanbabadu ku cadaadaan xuma laakiin taa waxa ka sii xun marka aad gabadh jeceshahay ku khiyaanto gabadhan gabadh adag bay u eg tahay telefoonkeeda iskala soo baxaysa inta oohinta iska dhamayso oo waxay garaacaysaa saaxiibkeed waxaana u sheegaysaa inay gurigiisa ugu imanayso gurigiisa ugu tagaysaa waxaana uga sheekaynaysaa wixii ku dhacay iyo waxay aragtay aad buu uga cadhoonayaa markaasay iyaduna ku sii odhanaysaa weliba sariirtu kula galgalanayay ninkii baa xanaaqay odhanaya ma ninkaagaa sidaa kuu galay oo sidaa kuu soo eriyey laakiin wuxuu ka odhanaya iska daa waqtigu uu hagaagsanaan doonaaye adaan ku fahmaya cuntan kuu keenaya iyo waxaad cabtide laakiin gabadhi waxay ka odhanaysaa iska daa xabiibi adaaban ku arkaya maxaan cuntada ku falaya degdeg badanaa ninku markii wuxuu la soo baxayaa kiniin gabadha ka odhanaysa ma dhaqsiyahan baad bilowdayba ninka ka odhanaya waan kuu qalbi dejin anu waxaan uma arkay wax kale u arkay afku saaraya telefoon baa isla markiiba kusoo dhacaya telefoonkaas ka dhex galaya sheekada markuu israado telefoon ku jar ayuu hadana doonay inuu sheekada halkii ka sii wado markuu israado hadana mar kale bilow telefoonku waa kusoo dhacaya mar labaad isagoo isla telefoon ku jar ayay gabadhu ka oranaysaa xabiib iska qaba waa caadi iska ka sugayay telefoonku qabanaya ninkan wuxuu ka oranaya wariya shaqo adag ban ku jiraaye mar dambe ay igu soo celin telefoonka ana mar kale kugu soo celinaya markan ku haleele hadana wuxuu oranaya xabiibi markan cid alaale cidna kala dhex gali kartaa ma jirto aan isku baxno hadaba markay sheekadu halka marayso waxa la soo garaacaya albaabka waxaanay weydiinaysaa ciday tahay wuxuu sheegay inay xaaskiisa tahay ee ay ku dhumato guriga isla markiiba intay boodo ay soo oranaysaa gabar laba baacle halkay gali karto gal isla markiina waxaad ku qaadaysaa daa ninkuna wuxuu ka soo furayaa gabadha albaabka isla markiina wuxuu ku bilaabayaa xabiibi waan ku jecelahay adiga daraad daawan ilaa maanta dhan guriga uga shaqeynayay ee laabta ay gali gabadhu laabta way galinaysaa laakiin waxay ka odhanaysaa waan daalanahay isla markiiba waxay arkaysaa cagahii dhaadheeraaya gabadha kale waxaanay weydiinaysaa inay guriga naa kale la joogto laakiin ninkuu dafiraya wuxuu ka odhanayaa si guriga qof kale u jooga adigu baan ku haystaaye laakiin gabadhu waxay ka odhanaysaa hadii laba mir kusoo bixi weydo saliid kulul baan kugu shubaya waana ku gubaya gabadha uu adkaysan kari weynaysaa dheer bay la soo baxaysaa qumaye aad moodo gabadhu way arkaysaa isla markiiba way ku qaylinaysaa ninkeeda laakiin xariifkan wuxuu ka odhanaya qalbiga ii dhayeysay waxa ka yeeli mayso oo way la siirmurmaysaa ninkuna wuxuu odhanaya raali gali gabadhaada gabadhii kale ka odhanaysaa ka gardarnaa ninkaaga laakiin waxay ka odhanaysaa iga aamus markay sidaa u soo jeesato ayaa gabadhii ninkula joogay garanaysaa ka odhanaysaa gabadha meel baan ku arkay oo haddana baan soo arkay soo gabadhani waa gabadhii ninkeeda la baashaalaysay ee iskaga soo bixi jirtay hadeer guriga ninkan uu dafiraya xaaskiisa oo gabadhan la fadhidu ka odhanaya waa saaxiibaday gabadhana inta dhirbaaxa ka jirtay odhanaysa masaaxiibada aniga ahayn ba leedahay sirnaga lagama sal gaadho labada gabdhood waxay khiyaameen ragoodii oo si isweydaara u khiyaameeyeen falowdii leegta naga ilaawina mahadsan